dhegaystayaal sheekadani waa sheeko dhab oo dhacday sheekadan ayaa waxay dulucdeedu tahay dhegaystayaal in adeegsiga aaladda internetku ay leedahay khasaare baan haddii si khaldan loo adeegsado sheekadina dhegaystayaal waxay u dhacday sida tan waa gabadh aad u daayar oo baratay internetka iyo aaladda lagu wada xidhiidho ee facebooka iyo oday aan guri marnaba yegleelin weligii oo qurbaha ku weynaaday waxaana sheekada u dhacday sida tan aadamaha dunida ku nool ayaa waxay ku kulmaan dhegaystayaal dhaqanka iyo diinta qarniyadan dambe aaladda casriga ee dunida ayaa waxay ka dhigtay tuulo mid ah sanadkii 2009 bishiisii afraad shanteedii ayay sheekadani ku dhacday oday looran jiray Jibriil oo ku noolaa waddanka England maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo isticmaalaya aaladda facebooka ayuu si kadisa waxa uu soo galay qof in yar kadib wuxuu xaqiiqsaday inay la hadlayso gabadhan oo magaceeda u sheegtay Farax waxaana uu sheegtay inay degan tahay magaalada Hargeysa gabadhan ay daadeedu tahay 16 jir arintaasi oo ahayd mid odaygan aad farxad gelisa isaga magaciisa waa bedelay isla markaana wuxuu jeclaystay inuu ugu soo babac dhigo magacu dhigmada yaraanteeda waxaana uu sheegay in la yiraahdo Hanad daadiisuna ay tahay 25 jir hanti iyo adduun badan haysto iyadoo daada odayga markan ay tahay 46 jir markii cabaar la kaftamayay waxaa la isku afkartay in haasaawe la wadaago ilaa 2 toddobaad ayaa waxay go'aan ku qaadatay Farax inay ka dalbato inuu sawirkiisa Facebook u soo geliyo odaygii Jibriil ee Hanadka haliyeyga sheeganayay ayaa tala ku cadaatay waxaana uu ku tashaday inuu bal arintan uu dhinacuun u fardaamiyo sidoo uu maareyn lahaa sawirkaasi ay dalbatay Farax dabadeed maxaa dhacay odaygii wuxuu talaahad badhan u rogabo wuxuu u tagay isla markaana uu ka dalbaday sawir xusuusa inaanu dhalay oday ay saaxiibiyiin oo lagu tiriyo dhalinyarta ugu xaragada badan diriskooda ama bajaarkooda iyadoo Ilaahay inankaasi ku manaystay qurux waxaana markaasi ka soo qaatay isla markaana uu ka codsaday inuu sawir xusuusa u galo si uu mar walba ugu soo xasuusto wuxuuna markaasi soo qaatay sawirkii isla markiiba wuxuu u diray Farax farxad iyo riyaaq ayay ugu dhambacadsatay sawirkii waxaana uu qaadan waa ku noqotay Farax iyadoo Jibriil uu u ballan qaaday inuu dhawaan dhowrka bilood ee soo socday imaan doono magaalada Hargeysa isla markaasina uu dhoofin doono hadalladaas waxay yidiidilo weyn geliyeen mustaqbalkii Farax iyadoo isla hadlaysa waxay tiri waxaan helay nolol jiif oo jaqa geesta kale waxa aan liidan rajada weyn ee Jibriil ku aadan gabadha dhalinyarada ee sida fudud uu ku helay waxaana farxad darteed uga habsaami jiray goobta shaqada soo tuurtay warakii walaadii tognaydo igu turuqday caashaqa turtay warakii walaadii tognaydo igu turuqday caashaqa inantii Farax ahayd waxaa dhacday inay isku ilowday facebooka xataa markay tagto goobta waxbarashada waxa qalbigeeda ku soo dhacayay ereyada macmacaan isla markaana xambaarsan jacaylka ee qalbigeeda dhalaalinayay makaan weeyay inda ku siyaa wada jacaylkii muddo bilah kadib wuxuu u sheegay inuu imaan doono toddobaadada soo socda odaygu wuxuu hilmaansanaa in sawirka uu xusuusta ah looga daba imaan karo odaygii Jibriil oo ku mashquulsan facebooka isla markaasna khadka ay ugu jirto oo ay la hadlayso Farax ayaa waxa si lama filaana ugu soo galay wiilkii baasaboorka u noqday soo dhaweyn kadib waa la is salaamay waa la iska canqaaday wiilkan waxa la yiraahdaa Ahmed dabadeed farxadii uu dhex tamashlaynayay awgeed ayuu odaygii isagoo hilmaansan wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo kijadii wuxuuna ku yiri isi fadhi koobka ayaan shaah inoogu soo karinayaaye Ahmed waa ku caajisay waxa uu damcay inuu isticmaalo isla markaana uu taataabto kombiyuutarkii
waxaanu si la yaab leh isagoo u baadhbaadhaya kombiyuutarka u arkay sawirkiisa oo dhex yaalla facebooka si degdeg ayuu wuxuu u qortay ciwaankii kadib shaahii ayaa u la cabay waxaanu u dhaqaajiyey dhankii iyo gurigooda wuxuuna markiiba galay facebooki uu ciwaankiisa soo qortay dhowr cisho kadib ayaa la aqbalay muran adag ayaa dhex maray markii isku dayay inuu ka dhaadhiciyo arrintan gabadha wuxuuna u sheegay magaciisa iyo halka uu degan yahay iyadoo taasi ay caddayn u noqotay haddana ma suuro gelin kalgacaylkan sida dhadada ugu dhacay qalbiga farax waxaana ay dheg u dhigi weyday orahaan ka soo yeedhaya axmed iyadoo u arkaysay inuu yahay saddexeeyo burburinaya jacaylkeeda waxay arrimuhu sidaasi ku socdaanba wuxuu u sheegay inuu sawirkanu isaga yahay waxay isla qaateen haddii arrimaha uu sheegaya ay dhabobaan ay kala ogaan karto oo keliya marka uu yimaado dalka maalin ayaa ka hadhsan inuu yimaado magaalada hargeysa odaygii wuxuu digniin uga dhigay islamarkaana waa feef u sii dhiibtay gabadhii wuxuuna ku yidhi ha ka noqonin go'aankaaga gabadhii farxad iyadoo ku jirta ayay u sheegtay inaanay marnaba ka noqonaynin go'aankeeda maryo aad u qurux badan ayay ku soo labisatay waxaana ay diyaar u tahay inay hor tagto wiilka aadka u daada yar ee ay sugaysay 10 subaxnimo ayuu ka soo degay airportka magaalada hargeysa waxaa isna uga soo horeeyay wiilkii axmed ah oo doonayay inuu badbaadiyo mustaqbal xumaanta soo food saartay gabadhan iyo khiyaamada uu geystay odaygu waxaana hor yimid waxaanay filayn oo ah oday awowgeed leeg waxaanay anfariil iyo afkalaqaad iyo dhidid iyo ilmo aan hakad lahayn ay qabsatay inantii farxahay waxay iyadoo murugo iyo iscilkaanbi la liidata ay kula dhaqaaqday dhanka iyo gurigoodii iyadoo soo xidhatay qol aadna ay u ilmeynayso ayaa waxay ku tashatay inay isweydiiso qofka ay jeclaatay waxaanay nafteeda ku qancisay inuu badbaadin karo oo keliya ninkii axmed ahaa sidii ay u hanan lahayd iyo inay falowgeeda gasho sidii ay qalbigiisa u soo jiidan lahayd odaygii jibriilha wuxuu baadigoob u galay sidii u ogaan lahaa haybta ay tahay farax islamarkaana wuxuu u diray hablo uu wuxuu yahay waxaanay ogaadeen cidda inantu u dhalatay iyo cidda ay tahay wuxuuna meel la fadhiistay odaygii jibriilha odaygii dhalay farax dabadeed maxaa dhacay odaygii jibriilha wuxuu meel la fadhiistay odaygii dhalay farax odayga farax dhalay waa oday muqayila islamarkaana dadka qaadka xadaafka cuna waxaana isku arkeen meel maqaaxiya jibriil sidii tilmaanta loogu sheegay odaygii uu doonayay ayuu markiiba helay maqaaxida waxa fadhiya dhowr oday oo ilkala oo qaadka tunta islamarkaana mid waliba uu haysto mooye iyo tib markii uu jibriil maqaaxidii fadhiistay islamarkaana uu la soo baxay qaadkii uu sitay wuxuu nin waliba markii la mirqaamay la yimi sheeko nin waliba waxbuu ku halqabsaday camirmay mirqaankii laakiin odayga jibriilha mirqaanku uma muuqdo sababtoo ah isagu ma helin wuxuu raadinayo weli sidii loo qayilayay ayaa waxa soo galay maqaaxidii wiil baalashlaa kadib wuxuu ku yidhi ma idiin soo baalasheeya kabaha dhammaantood uma aanay jawaabin odaygii jibriilha mooyaane wuxuuna ku yidhi aniga iyo labada nin ee igu xiga u soo baalashee labada nin ee ku xiga waa odaygii dhalay farax iyo ninay saaxiiba yihiin kadib sheekadu ha sii socoto kolba nin ha sheekeeyo markii dambe waxay soo gaadhay odaygii jibriilha dabadeedna wuxuu yidhi isugaan lacagta baalashkaan bixiye war ma haysaane aan idiin warrama dabadeed wuxuu uga sheekeeyey 30 sannadood ee uu qurbaha ku noolaa dhibaatooyinkii qabsaday odaygii jibriilha sidii uu ragga ugu sheekeynayey ayaa qaadkii ka dhammaaday kadib wuxuu u diray qaad kale islamarkaana islaantii maqaaxida haysatay ayuu ka dalbaday inay qaad kale soo siisa ragga si aanay marnaba hakadu gelin sheekadu habeenkaasi farax aabaheed wuxuu ahaa habeen aad u farxad badan islamarkaana ahaa habeenkii ugu mirqaanka badnaa ee soo mara odayga
geesta kale inantii farax ahayd waxay raadisay inankii axmed ahaa halka uu ku soo degay isla markaasina waxay ogaatay inuu ku soo degay xaafad ay qaraabo yihiin iyadoo ka fikiraysa bal sidii ay xaafaddaasi u geli lahayd iyo qaabkii ay u abbaari lahayd ayaa nasiibku wuxuu la kulansiiyey isagoo dukaan wax ka iibsanaya way faraxday kadib waa lays hor yimi laysasaraan kadib xog waraysi iyo sheeko ayaa dhex martay iyadoo mararka qaar ay dhacaysay sidoo ugu sheekeynaya axmed inay baxdo iyadoo ku maqan wejigiisa uu ilaahay quruxda ku manaystay isla markaana niyadda kale wejigaa quruxda leh ayaa qalbigaygii lagu xaday sidoo kale waxay ku daalqabsatay kadib iyadoo isilowsan isla markaana qalbigeeda xidhsan kari waayey jacaylka ay u qabto muuqaalkiisa ayaa waxay si lama filaana u tidhi ubax baan sidaa kula soo ordee madigaa aqbali axmed oo ahaa wiil waaye aragnimo iyo xeeldheeriis ku darsaday wuxuu markii ay ku tidhi waan ku jeclahay si taxadir ku jiro uu ku yidhi dumarkaba ka eegtee cashaqeena daadii dumarkaba ka eegtee cashaqeena daadii kadib wuxuu sii kaxeeyey dhanka iyo xaafadoodii lambaradii la isweydaarsay ballan wuxuu ku qaaday axmed inuu dhibaatada ay wejigiisa dartii u martay inuu ugu bedeli doono nolol aad u farxad badan wuxuuna dhegaha si dadban ugu riday inuu guursan doono inta aanu dibadda u noqon gabadhii farxahayd aad uma farxin keliyase way dhoolla caddaysay sababtoo ah waxay og tahay dhibtii ay ka soo martay farxad ayaa habeenkaasi lagu kala hoyday dhan kastaana wuxuu la dheelmaday farxad aanu hore u arki jirin tasawirkaaga ku soo noqnoqdo qalbigu manastee gacalo nafaqee subaxii markuu waagu bariyey ayaa odaygii jibriil ahaa maqaaxidiisii fadhiistay mise waxaaba ku soo maray odaygii farax dhalay kadib wuxuu ku yidhi jibriil soo fadhiiso aynu shaah wada cabne kadib shaahii la wada cab sheekana lagu dhex dar iyagoo isku sheekaysanaya ayaa odaygii jibriil ahaa ayuu wuxuu ku yidhi maanta aniga ayaad ii casuumantihiin adigiiyo saaxiibka waxaadna ii raacaysaan gurigaygii halkaasi oo aan ku soo degay kadib markii uu maalin walba guriga laysugu imaan jiray islamarkaana lagu wada qayili jiray saaxiibtinimadina ay sii xoogaysatay u dhaxaysay odayga jibriil iyo odaygii dhalay farax iyana waxaa taabagal iyo tisqaad noqday jacaylkii farax iyo axmed odaygii dhalay farax ayaa wuxuu maalmaha ka mida ku yidhi odaygii ay saaxiibada ahaayeen ee jibriil adigu waxaad tahay nin fiican horta nin yahow miyaanad reer iyo carruur lahayn wuxuuna ugu jawaabay maya waayo anigu inta badan waxaan ku mashquulsanaa shaqo oo haweenba isma haleeli jirin kadib wuxuu ku yidhi ma guursanaysaa haddii aad iminka gabadh hesho haa ayuu yidhi haddii aan helo mid yar oo weysada ii biyeysa odaygii farax dhalay wuxuu niyadda iska yidhi talow xidid ma la noqotaa ninkan kadib wuxuu ku yidhi ka waran
haddii aan hablahayga anigu midku siiyo. odaygii jibriilha ayaa aad u farxay, waanu isku dardarsamay. kadib wuxuu ku yidhi, tee ayaad isiinaysaa hablahaaga? haddana wuxuu ugu halceliyey, miyaad kala garanaysaa hablahayga? wuxuuna ugu jawaabay, maya. kadib wuxuu ku yidhi, labada hablood ee hablahayga ugu degan waa laba, waxaana la kala yidhaahdaa farax iyo haweeya. kadib adigu tee ayaad dooran lahayd? tee ayaad kugu daraa? markaasi ayuu ugu jawaabay odaygii jibriilha, waan kaa guddoomay, waxaanan dooranayaa inanta aad farax igu sheegtay. waxaanu intaasi raaciyey, arma ii diidaa inaan guursado? kadib wuxuu ku yidhi, inanta duciya habaar kala dooro, miduun ayay qaadanaysaa. halkaa ha ka warwarin ee soo diyaargarow, aniga ayaa dhalay inantayda, amarkayga mooye amar kale kuma soconayso. habeenkii gurigii ayaa laysugu yimi. odaygii dhalay farax wuxuu la tashaday islaantiisii, wuxuuna u sheegay in inanta farax ahayd uu bixiyey. iyadoo aanay hakadba gelin ayay ku raacday, waxaanay ku tidhi, adaa aabbaheeda oo garanaya halka danteedu ku jirto. kadib wuxuu u yeedhay inantii uu dhalay ee farax, wuxuuna ku yidhi, aabbo, waadigan oo waad qaangaadhay, ninaan saaxiibba nahay ayaa ay kaa weydiistay, dibadda ayaanu ka yimi. aniguna aabbo, ninka aad ayaan saaxiibba u nahay, kamaanan diidin ee gacanta ayaan u fidiyey, waanaan ku siiyey. aabbaheed ayaa ku yidhi farax, horta aabba aan ku weydiiye, ma nin baad wada sheekaysataan? kadib waxay ku tidhi farax oo si deggan u hadlaysa, aabba waan kuu sheegi doonaaye, ninka magiciisa isii. kadib wuxuu ku jawaabay, waxaa la yidhaahdaa jibriil, waana nin dibadda ka yimi, hanti badan iyo adduun badan haysta. inantii filaysay in ninkii axmed ahaa la siiyo oo uu soo doonto ayaa naxdin hadli kari weyday, waxaanay u sheegtay sheekadii iyada iyo jibriil soo dhex martay iyo sidii uu u khiyaameeyey. samirka joogto kay sugaysay admigu intuu saashada yaxtiga sabaaliyo been kuwaday. afkaana haysabaana badan hunga samirka joogto sugaysay admigu intuu saashada yaxtiga sabaaliyo been kuwaday. haddaan kugu soo lila qalbigayga saxari, sasbaan ka qabaa ragaba. haddaan kugu soo rila qalbigayga saxari, sasbaan ka qabaa ragaba. kadib waxay u sheegtay inuu sawir inan la yidhaahdo axmed uu ku khiyaameeyey, sawirkaasina ay ilaa haatan ay wada hadlaan. waxaanay u sheegtay in sawirkanuu ku khiyaameeyey uu hadda badbaadiyey. kadib aabbaheed ayay ka codsatay inuu inankaasi ku daro. odaygii dhalay farax waa uu iscadho maray, go'aan degdegana wuxuu ku qaatay inuu ka aqbalo waxay inantiisi ka codsatay, waxaana uu ku yidhi, berri toola ii keen inanka. odaygii farax dhalay subaxii waa uu baxay, waxaana u tegey gabadhii uu qaadka ka qaadan jiray. kadib wuxuu weydiiyey intii wiig ee ay wada socdeen jibriil inta geed ee uu u qaaday ee ay cuneen. waxay u sheegtay, waa uu iskaga tegey. wuxuu sii maray maqaaxidii, wuxuu weydiiyey inta falaasadood ee laga soo qaadi jiray maalin walba iyo intay ahaayeen. sigaarlii u dhowaana waa sii maray. kadib wuxuu tegey sariflii uu lahaa walaalkii, lacagtii uu isku soo xisaabiyey maqaaxida iyo kabarhku lahaa oo isku geeyey ayuu soo qaaday iyadoo dollara. kadib wuxuu u tegey gurigii jibriil uu ku soo degay. albaabkii ayuu garaacay, waxaa ka furay odaygii jibriilha oo daaradda ku foolfooldhaqanaya. waa uu salaamay, wuxuuna ku yidhi, soo dhowow, gurigu waa gurigaagii. odaygii dhalay farax iyadoo uu hadalku ku adag yahay ayaa wuxuu ku yidhi, beentu lug yar oo la qabta ayay leedahay. anigu waxaan soo ogaaday sababtaadii la saaxiibtay. waxaad tahay khiyaamoole dadka wejiyadooda adeegsada. wixii aad qaad iyo sigaar iyo shaah aad inoo qaaday lacagtoodii waa taas. inaadeero mar dambe araggaaga iyo araggayga kala ilaali. markaasuu ku yidhi, miyaad igaga noqotay inantii? wuxuu odaygii farax dhalay ku jawaabay, adiga oo kale inantayda
laguma aamini karo. albaabkii ayuu ka degay wuxuuna u jahaystay dhanka iyo gurigiisii wuxuuna u diyaar garoobay in axmed loo keeni doono. inantii faraxayd oo farxad cirka iyo dhulku hayn la'yahay ayaa garaacday lambarkii axmed waxaanay u sheegtay in odaygii aabbaheedaha uu u baahan yahay inuu la kulmo 4 galabnimo. kadib xataa waxay u sheegtay odaygii aabbaheedaha in jibriil khiyaameeyey isla markaana labadii oday ay isku dhaceen. kadib waxay ku tiri soo dheeree galabta. dabadeed ninkii axmed ahaa ayaa aad u cabsaday maadaama uu yahay wejigii lagu khiyaameeyey inanta, haddana dhanka kale uu yahay badbaadiyaha mustaqbalka farax. wuxuuna ka cabsaday in waxyeelo la soo gaadhsiiyo. wuxuu ka tushaday inuu tigidh soo goosto oo uu iskaga dhoofo. iyadoo inantii farax ahayd iyo aabbaheedba ay wada socdaan ayaa isaga oo tagsi saaran ay aragtay. ma ogeyn halka u socdo. kadib waa ay ka daba dhawaaqday waxaana ay ku tiri axmed xaggee tegaysaa? kadib gaadhigii ayuu darawalkii ku yidhi istaaji. gaadhigii ayaa uu ka soo degay waana uu salaamay. kadib waxay tidhi aabba waa kan inankaan kaaga sheekaynayay. kadib wuu salaamay waa la isbartay. ninkii safarka u xidhxidhnaa waxaa qasab ku noqotay inuu iska joogo. subaxii ayaa wadaado iyo niman ka socda inanka reerkoodii ay yimaadeen gurigii farax. waxaa la isku daray farax iyo axmed. toddobaad kadib arooskoodii ayaa dhacay. aroosku wuxuu ahaa mid qiimo weyn ugu fadhiya farax maadaama ay heshay qofkii ay wejigiisa jeclaatay. habeenkii oo dhan ayaa la ciyaarayay arooska. inkastoo uu axmed u muuqday inuu yahay nin muqajila haddana wuxuu ahaa mid dhankiisa arooska ka guujiyey. bil kadib markii ay qoys ahaayeen ayaa ninkii axmed ahaa u sheegay inuu noqonayo. kadib wuxuu farax u sheegay 4 bilood ka dambaynayso oo uu dhoofin doono. kadib waa dhoofay. ninkii axmed ahaa siduu maalin walba ula soo hadli jiray reerkiisa ayuu maalin si lama filaana ugu sheegay in bisha soo socota ay dhoofayso. kadib bishii waa dhammaatay. faraxna hadda waxay u socotaa inay u tagto halka uu ninkeedu degan yahay waxaana ay ka degtay erbood ku yaala dalka ingiriiska. kadib waxaa ka hor yimaaday ninkii axmed ahaa waa soo kaxeeyey waxaana uu keenay gurigii uu ka deganaa dalka. kadib markii dhowr toddobaad ay joogtay ayaa waxay u sheegtay axmed inay xaamilo tahay. dhowr bilood kadib waxa ay umushay wiil. halkaasina waxay ku noqdeen qoys dhammaystiran. dhegaystayaal intaynu sheekadan la mida isugu iman doono waa habayntii iyo iskudubaridkii xasan maxamed burgal iyo tabintii iyo soo diyaarintii anigoo maxamed cabdiqalinlaa. dhammaantii waxaan idinka tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. لو تشددني كمينا نفلحن وبتخير غبيه والله يتوعن يلغونا أمين الله يغامين وقبيك القعل أحد دورتي سمان تدلين لو تشددني كمينا نفلحن وبتخير غبيه آية وعن إله أمين الغي وامين أذني يا حوا قولوا لها كالقعل اللي يسوقك أذني يا حوا قولوا لها كالقعل اللي يسوقك أدني قتلنا
أبكاريو أبتسي منوكي أدميك كلانا أبكاريو أبتسي منوكي وقبيك القعر أحدي دورسي سمانتي دليل سوجد ذيمك من الفرحين وبتقيق بيو نور آية وعد إله النسيم